kusoo dhawow shanta waddan ee islaamka ugu awood badan dhinaca ciidanka. lambar 5 waa waddanka Sacuudiga Carabiya. tirada ciidamada militariga Sacuudiga ee shaqeeya waa 480,000 oo askari. ciidanka keydka ah waa 325,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Sacuudiga lagu bixiyo waa 68 bilyan oo dollar, waana dalka saddexaad ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya militariga guud ahaan caalamka. awoodda dhulka, Sacuudiga wuxuu qalabka ciidamada ka soo qaataa dibadda, waxaana meelaha ugu badan uu ka keeno u yahay waddanka Mareykanka. militariga Sacuudiga Carabiya waxay haystaan qiyaastii 1,050 taangi iyo in ka badan, 380 oo gawaarida gaashaaman ah, 700 oo ah madaafiicda iskooda isku jiheeya, 120 gantaal oo marar badan la ridi karo ah. awoodda cirka, tirada guud ee diyaaradaha waa 920, 370 diyaaradood waa kuwa dagaalka ah, 300 noocyada qumaatiga oo kale loo yaqaano helicopteriska. noocyada diyaaradaha dagaalka ee ugu muhiimsan Sacuudiga waa F-15 iyo Tornado. awoodda badda, isku darka maraakiibta ciidamada badda ee Sacuudiga waa 11. haddaba ma haystaan maraakiibta quusa biyaha hoostooda iyo kuwa wax burburiya iyo kuwa diyaaradaha xambaara doona. lambar 4 waa waddanka Iiraan, waa waddanka afaraad ee ugu awood badan wadamada muslimka ah. tirada ciidamada militariga Iiraan ee shaqeeya waa 550,000 oo askari. ciidanka keydka ah waa 350,000 askari. miisaaniyadda militariga Iiraan lagu bixiyo waa 20 bilyan oo dollar. qalabka ay haystaan ciidamada militariga oo qaar badan lagu sameeyey gudaha waddanka Iiraan, waxaa kale oo ku jira kuwa laga keenay waddanka Ruushka. awoodda dhulka, militariga Iiraan waxay haystaan qiyaastii 1,600 taangi iyo in ka badan 2,000 oo gawaarida gaashaaman ah, 550 ah madaafiicda iskooda isku jiheeya, 700 gantaal oo ridada dheer. awoodda cirka, 130 diyaaradood kuwa dagaalka ah, 120 nooca qumaatiga u kacay loo yaqaano helicopteriska. noocyada diyaaradaha dagaalka ee ugu muhiimsan Iiraan waa F-14 iyo Kowsar. awoodda badda, isku darka maraakiibta dagaalka Iiraan waa 33 maraakiibta biyaha hoostooda quusa oo ah kuwa gujiska ah. Iiraan hadda ma haysato maraakiib wax burburiya iyo kuwa diyaaradaha xamuulka midna. lambar 3 waa waddanka Masar. tirada ciidamada militariga Masar ee shaqeeya waa 440,000 oo askari. ciidanka keydka ah waa 480,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Masar lagu bixiyo waa 12 bilyan oo dollar. awoodda dhulka, militariga Masar waxay haystaan qiyaastii 3,800 taangi iyo in ka badan, 6,000 gawaarida gaashaaman ah, 800 oo ah madaafiicda iskooda isku jiheeya, 1,000 gantaal oo marar badan la ridi karo ah oo kuwa ridada dheer ah. awoodda cirka, tirada guud ee diyaaradaha waa 1,130, 270 diyaaradood waa kuwa dagaalka ah, 300 nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaano helicopteriska. noocyada diyaaradaha dagaalka ee ugu muhiimsan waddanka Masar waa F-16 iyo Mirage 2000. awoodda badda, ciidamada badda ee Masar waxay ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badan bariga dhexe iyo Afrika. qalabka ciidamada badda waxay 2 markab oo ah nooca qaada diyaaradaha qumaatiga u kaca, 8 markab oo kuwa biyaha hoostooda quusa ah, ilaa 14 markab oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa xamuulka ah. lambar 2 waddanka Turkiga. tirada ciidamada militariga ee Turkiga shaqeeya waa 335,000 askari. ciidamada keydka u ah waa 380,000. miisaaniyadda Turkiga militariga ay ku bixiyaan waa 17 bilyan oo dollar. awoodda dhulka, militariga Turkiga waxay haystaan qiyaastii 3,045 taangi iyo 12,630 oo gawaarida gaashaaman ah, 943 oo madaafiicda iskooda isku jiheeya, 407 gantaal oo marar badan la ridi karo. awoodda cirka, tirada guud ee diyaaradaha waa 1,056, 206 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 471 noocyada qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopteriska, 273 diyaaradood oo kuwa tababarka ah. awoodda badda, qalabka ciidamada badda waxay kala yihiin 26 markab oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa xamuulka ah, 12 markab oo kuwa biyaha hoostooda quusa ah oo loo yaqaano maraakiibta gujiska, 35 markab oo ah kuwa kormeerka sameeya ah. lambar 1 waa waddanka islaamka ugu awood badan waa lambar 1 waa waddanka Bakistan. Bakistan waa waddanka kaliya ee muslimka ah ee haysta hubka nuclearka inta la ogyahay. ciidamada militariga Bakistan ee shaqeeya waa
654,000 oo askari. ciidamada keedka ah waa 550,000 oo askari. miisaaniyadda militariga Bakistan lagu bixiyo waa $12 bilyan. awoodda dhulka militariga Bakistan waxay haystaan qiyaastii 2,680 taangi iyo in ka badan 9,635 oo gawaarida gaashamaan ah, 429 oo ah madaafiicda iskooda isku jiheeya, 330 gantaal marar badan la ridi karo ah awoodda cirka. tirada guud ee diyaaradaha Bakistan waa 1,130, 357 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 331 noocyada qumaadka oo kaca loo yaqaan helikobteriska, 510 diyaaradood oo kuwa tababarka ah. awoodda badda qalabka ciidamada badda waxay kala yihiin 10 markab oo isugu jira kuwa dagaalka iyo kuwa xamuulka ah, 9 markab oo kuwa biyaha hoostooda quusa ay loo yaqaan gujiska, 49 markab oo kuwa kormeerka sameeya ah. haddaba dhegeyste, haddaad waxu naga faa'iiday adigoo mahadsan noo saar subscribe mahadsanid. kusoo dhawow shanta waddan ee islaamka ugu awood badan dhinaca